marka hore dhammaan dad ka soo qayb qaatay oo arrintan ay u fahmay inay tahay qadiyad ay wada leeyihiin oo aragtidaas soo qaatay waxaan marka koowaad u mahad celinayaa gabadha abaabulka weyn ee lahayd arrintan aad waqtiga badan u bixisay caasho waxaa sidaas oo kale aan ku hadlay magaca dadka reer Copenhagen aan u mahad reer Denmark oo dhan aan u mahad celinayaa dadka arrintan waqtiga badan ku bixiyay hadda waxaan aragnay oo nala tusiyay runtii barnaamij diyaarsan waxa ku baxay waqti badan waxa uga baxay kharash badan waxa uga baxay wada tashi badan waxyaabahaas oo dhan waxaan leenahay inaan waa uga mahad celinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala ajr ka siiyo xasanaan sidaas oo kale nabi alayhi salaam wuxuu xadiis ku yiri man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah ninka aan dadka u mahad celin ilaah uma mahad celiyo saas daraadeed waxay mudan yihiin mahad iyagoo ka yimid qaarada dheer oo waqti badan ka bixiyay oo sida anagoo kale oo meesha hadda iska fadhina oo danaheena caruurteena iyo familiyadeena la joogna iyaga waxay waqti badan ku bixiyeen oo diyaarad u soo raaceen oo halkan u yimaadeen inay arrintaas oo naga dhaxaysa inay mas'uuliyadooda soo qaadeen oo waqtigooda soo geliyeen runtiina aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin sidaas oo kale waxaa jira saxaabada markii ay jihaadka ku jireen waxaa jira qaar kale oo markaas aan joogin laakiin niyeysana annagana waxaan naga rabaa inaan dadaalkaas la imaano sida suuratu tawba ku yiri la yusibuhum nasabun wala dhamahun wala makhmasatun fi sabilillah ولا يضعون موضعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح أيضا وحن كلا ترنا إن النية ذكريان وحول بقى قبته حتى وحول بقى سمي سعدت كلمة عليه السلام واتوكشاري إن أجر نيستان طلبنا يسوق قادين وقت كان يسوق بحيان إن أرنتان إله سبحانه وتعالى وحن دعينا إن سكوت وكقوليه oo mataqaana anagoo dhan nagu guuleeyo anagana inaan ka qayb qaadano oo runta ka sheegno waayo isbedelka aan sameynayno magaalada hadda wadankan aan deganahay aan u soo qaxnay aan u soo dheeraanay duruuftiina keentay sidaan uga laaban lahayn oo wadankan ugu laaban lahayn waa talaabadii ugu muhiimsaneed oo aan mataqaana oo tala noo wada taalo taladaas oo iyaga ay bilaabeen fajazaahumullahu khayran aadan u mahadsantihiin warkan oo idinku baday wasalaamu calaykum waraxmatullahi